Roma cutubka 13 naf walba ka dambayso kuwa amarka sare leh, waayo amar ma jiro kan Ilaah ka yimaada mooyaane, kuwa jirana Ilaah baa ka dhigay kuwa amar leh. sidaas daraaddeed kii diida kan amarka leh wuxuu hor joogsadaa amarka Ilaah. kuwa hor joogsadaana waxay nafahooda u heli doonaan xukun. madaxdu cabsi ma geliyaan kuwa shuqul wanaagsan sameeya, kuwa xumaan sameeya mooyaane. ma waxaad doonaysaa inaadan ka cabsan kan amarka leh? wax wanaagsan samee oo ammaan baad ka helaysaa isla isaga, waayo isagu wuxuu xaggaaga ku yahay midiidinka Ilaah inuu wanaag kuu sameeyo. laakiinse haddaad xumaan samaysid, cabso, waayo isagu seef uma sito sabab la'aan. maxaa yeelay isagu waa midiidinka Ilaah oo waa mid cadho kaga aarsada kii xumaan sameeya. sidaas daraaddeed waa in laga dambeeyo kan amarka leh, mana aha cadhada aawadeed oo keliya, laakiinse waa niyadda aawadeedna. waayo sababtaas aawadeed waxaad u bixisaan cashuur, maxaa yeelay iyagu waa midiidinnadii Ilaah oo had iyo goor ka shaqeeya isla waxaas. mid walba wuxuu idinku leeyahay siiya, kii baad idinku leh baad siiya, kii cashuur idinku leh cashuur siiya, kii laga cabsadana ka cabsada, kii ciise lehna ciseeya. ninna yuusan wax idinku lahaan in midkiinba midka kale jeclaado mooyaane, waayo kii deriskiisa jeclaadaa sharcigu oofiyey. waayo amarrada la yidhi: waa inaanad sinaysan, waa inaadan qudhgoyn, waa inaanad waxba xadin, waa inaanad wax damcin. oo haddii amar kale jirana waxaa lagu soo koobay hadalkan: waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. jacaylku xumaan kuma sameeyo deriskiisa. jacaylku haddaba waa oofinta sharciga. oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka toosi lahaydeen, waayo haatan ayay badbaadintu inooga dhowdahay. markii horeoo aan rumaysannay, habeenkii hore buu u batay, maalintiina waa soo dhowaatay. sidaas daraaddeed aan iska dhigno shuqullada gudcurka oo aan qaadanno hubka iftiinka, sida iyadoo maalina aynu si quman u soconno. yaynaan ku socon rabshad iyo sakhraannimo, yaynaan ku socon galmo iyo dhillannimo, yaynaan ku socon ilaaq iyo hinaaso, laakiin Rabbi ciise masiix huwada. oo jidhka ha ka fikirina inaad damacyadiisa samaysaan,